ciidanka booliska degmada Cadaado ayaa howlgalo xalay ka sameeyeen magaalada Cadaado waxay ku soo qabteen eedeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo ku eedeysnaa kiiska kufsiga dilka ee loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo la sheegay in dhawaan laga soo tuuray dabaq ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Taliyaha saldhigga booliska degmada Cadaado Cali Maxamed Xasan Cali Dheere ayaa ka warbixiyay howlgalka ay ku soo qabteen eedeysanaha. waxaa noo soo gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Saalax Xamdi Maxamed Faarax. dhinaca kale taliyaha ayaa u mahad celiyay ciidanka booliska Soomaaliya kuwa Galmudug iyo cid kasta oo ka gacan geysatay soo qabashada eedeysanaha oo xogtaas aad iyo aad informationka noo siinayay ama amiirna nagu siiyay haddii heer guud taliyaha ugu sareeya booliska Soomaaliyeed taliyaha xigeenka taliyaha Galmudug taliyaha xigeenka dhammaan saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa inay taagnaayeen waxaan wadaagaynaa xog joogta oo saacada waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo dhan inay taagan yihiin oo taagnaayeen waxaan rabnaa inaan cadeyno way taagan yihiin booliska Galmudug ama meer ayaan ku qabnaa inaan taagnaano saraakiisheena na siisay wax walba oo caqabad ku ah dalkan iyo dadkan iyo diintaana inaan u taagnaano oo hameen iyo maalin baan raadino oo soo qabanno ayaan amar ku qabnaa waa ku dhaaranay ma rabno inaan dhaartii aan dhaaranay been noqoto waa qabanaynaa cid kasta oo xadgudub ku sameeyay wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolkan hadda ku joogno gacantaan ku soo qabanaynaa insha Allah kariim ma ahan meel bahla galeena meel dambi lagu soo dhuunta maaha meel dad arxan laawahu gabaad ka dhiga karna maaha ciidamo iyo saraakiil falgalaya jooga mar walba saacadooda walba shaqadooda qabsanaya. ugu dambeyntii taliyaha ayaa sheegay in eedeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa kiiska marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kana soo baxsaday Muqdisho falka kadib dib loogu celinayo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaan rabnaa inaan cadeyno ninkaas inuu gacanta lagu hayo sharcigana mari doono ama mirta labaad ee saraakiishna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho sidaas ayaan amar ku qabnaa gacanta ayaana ku haynaa waa kan garabka bidix fadhiya waxaan soo qabanay 6 saac iyo 43 daqiiqo xalay ayay ku guuleysteen ciidanku. مبارك محمود شقادن يونيفرسيتي في عدادو.